وهاجاك داوديال waxaan ku sugannahay garoonka diyaaradaha Dancadde ee magaalada Muqdisho halkan waxa si weyn uga socda soo dhaweynta wafdiga ka soconaya dalka Itoobiya ee uu hogaaminayo Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed kaasi oo maanta imaanaya magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya halkan waxa si weyn uga socda qabaqabada soo dhaweynta wafdiga Itoobiya iyadoona garoonka diyaaradaha iyo meelaha kale ee loo qorsheeyay wafdiga ka socda dalka Itoobiya lagu soo dhaweeyo ay ku sugan yihiin madax kala duwan oo golayaasha dawladda ah iyo sidoo kale maamulka gobolka Banaadir sidoo kale goobta waxa ku sugan dadweyne si gaar ah loogu diyaariyay inay qayb ka noqdaan soo dhaweynta wafdiga maanta ka imaanaya dalka Itoobiya kuwaasi oo ay qayb ka yihiin barbaarta gaashaaban oo halkan ku soo bandhigi doona ciyaaraha dhaqanka iyo hidaha ee qaranka Soomaaliya wafdiga ka socda Itoobiya oo hogaaminaya Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ayaa si weyn loogu diyaar garoobay magaalada Muqdisho iyadoona wadooyinka waaweyn ee magaalada ay si gaar ah uga suran yihiin calamada Soomaaliya iyo Itoobiya taasi oo muujinaysa wadada horumarka nabadda iyo diblomaasiyadda ee labada dawladood soo dhaweynta wafdiga Itoobiya waxa imaanaysa iyadoo horaantii sanadkan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi ballaaran oo hogaaminayo magaalada Addis Ababa ay gaareen halkaasi oo si weyn dawladda Itoobiya ay ugu soo dhaweysay taasi oo wado cusub u furtay in xal nabadeed iyo horumar diblomaasiyadeed dalalka Soomaaliya iyo Itoobiya ay ku wada noolaadaan wararka iyo dhacdooyinka garoonka diyaaradaha Dancadde ee soo dhaweynta wafdiga ka socda Itoobiya warbaahinta qaranka ayaa si toos ah uga soo doontaan Maxamed Cabduqaadir Silver warbaahinta qaranka garoonka Dancadde magaalada Muqdisho